maxaa cilaaja baynu leenahay marka maxaa dawaa ugu horreyn waxaynu leenahay kitaabka qur-aan iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam wiqaayo iyo cilaajba uu ku soo arooray wax lagaga dhowrsado warwarka iyo walbahaarkaasi wuu ku soo arooray oo marka horeba dafciya oo qofka laazima aanu ku dhacaynin insha allahu tacaala kaa khaarijiga aynu ka warramayno waxaa kaloo ku soo arooray wax la yskaga daweeyo oo qur-aan iyo xadiidba leh dhowr qodob baynu markaa tilmaamaynaa qodobka koowaad waxa weeyaan waa caqiidada islaamiga qofka muslimkii uu ka warwariyo walbahaar yaryay qofka aan muslimka ahayn caalamulislaamina wuu ka yaryay isagoo ka mashkilad badan haddana wuu ka xanuun yaryay marka loo eego xanuunada walwarka iyo walbahaarka ku saabsan iyadoo ay ahayd inuu maadaama uu mashaakilka yaalla ka tiro badan yahay uu ka tiro bato ayuu haddana ka yaryay baynu leenahay sababtu waa maxay sababta koowaad waxaynu leenahay waa masalatu alqadaa'i waalqadar qofka mu'minkii wuxuu rumaysan yahay oo caqiidadiisa ka mid ah alqadaa' waalqadar wuxuu raalli ku yahay ilaahay qadihiisiiyo wixii uu qoray wixii dhaca wuxuu garanayaa wax rabbi qoray inay ahayd waana ka nebigu le calayhi salaatu wasalaam waclam ana alumma low ijtamacat an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu allahu lak dad oo dhamme hadday isu tagaan oo rabaan inay ku anfacaan kuguma anfici karaan wax rabbi kuu qoray mooyaane hadday isu wada tagaan oo rabaan inay ku dhibaanna kuguma dhibi karaan wax rabbi kuu qoray mooyaane waataynu aayadda hadda soo akhrinaynay ma asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir wixii balaayaba dhacaba ilaahay yidhi horaan u qoray waana ilaahay agtiisa wax ka fudud maxaa sidaa loo yeelay likay laa ta'saw calaa maa faatakum baa ilaahay leeyay si aydan uga murugoonin oo uga warwarin oo uga walbahaarin wixii idin dhaafay walaa tafraxuu bima ataakum sidaydan ugu kibrin oo u qooqin wixii uu idin siiyo hadduu ku siiyana inaad aayar ilaahay u mahad celiso waanad qooqin berriba way lumi kartaaye haddaad weydana inaad waxba murugoonin waad tidhahdaa alxamdu lilaahi calaa kulli xaal ilaahay aad mahadiso subxaana wa tacaala idan waa dawo qofka mu'minka ahi caruur ka dhimatay xaas ka dhintay shaqo uu waayey makaano uu waayey warwarkiiyo walbahaarka ay ku abuurtaa xanuun kuma noqdo in western society wadannada reer galbeedka waxaa caanka ah recessioniskan dhaqaale markay dhintaan intaas oo dadaba isdila waayo boorsadiibaa khasaartay uu lacagta gashaday dabeetana waxaa la odhanayaa maanta waxaa isdilay intaasoo dad ah sababtu waa maxay boorsadii lacagta khasaartay meelahan suuqyada lacagta markabu soo raraabaa degay inay waashaan oo dhakhtarka la dhigo iyo inay isdilaan labada midunbaabay noqotaa inuu kaws kaga siiyo oo intixaar uu sameeyo suicide iyo in waali dhakhtarka lala dhigo ama qofka muslimka ah inkastoo ay xanuun ku beerayso hanti uu waayey ama qof uu jeclaayo ka geeriyooday ama kan laakiin durbadiiba wuxuu rumaystaa in rabbi qadaray dabeetana wax weyn kuma noqoto alqadaa walqadar iimaanka la rumeeyaa markaa wax badan buu ka taraa shayga labaad aynu leenahay wax badan buu ka taraa waxa weeyaan aliimaanu bilyowmi alaakhir oo qofka mu'minka ah wuxuu rumaysan yahay wax kastoo dhibo oo la timaada adduunkuba inuu wax yar yahay oo macno badan aan lahay wax qiimo leh markaad weydaabaa dee la naxaa laakiin adduunka gebigiiba nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam low kaanat addunya tacdilu cinda allahi janaaxa bacuuda maa saqaa kaafiran minha shurbata maa xadiidkii imaamu tirmidi warinaya sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamaya adduun dhammaantiiba ilaahay agtii hadduu garab kaneeca ka leegyahay kaneeca la qaybqaybiye kaneecana walba wax faa'iido lahayn ayaa haddana la qaybqaybiye waxa la tilmaamay garabkeed adduun dhammaantii baa la yidhi hadduu kaneeco garabkeed ilaahay agtii ka joogo qiimo intaa leeg hadduu ka leeyahay gaal koobiyaa kama siiyeen baa la yidhi gaal lagama waraabiyeen idan qofka mu'minkii wuxuu rumaysan yahay adduunkuba qiimo loo warwaro wax garab kaneeco ka yar dee looma waasho
سادرادد قفك مؤمن كهي وحو الرميساني آخرة ولذلك من النبي وحو عليه الصلاة والسلام حديث كلا إمام الترمذي ورينيه سنة الشيخ الألباني صحيح قلت الماميه من كانت الآخرة همه نك ورور كيسو آخرية هي إلهي سبحانه وتعالى جعل الله غناه في قلبه إلهي غني نمديس قلبي سيالا غني نمد هو قلبك ما هقعنت وحا كجرا قعنت وحا كجرا مرر بدن إيمان لانو بابا لغا سيقادا هنغوري سو الدنيا دا موغيد كبليان كايستا بليان كلو رادين يهدي بليان كيسو وما موغضا قفك بني آدم كي انت بدن انت قعنتي سكجرته هي مشروع وكفكر هي مركز مشروع وكفكر يا وين